dowladda Itoobiya ayaa ballan qaaday inay dayactirayso masjid qadiimi ah kaas oo waxyeelo ka soo gaartay dagaaladii ka dhacay gobolka waqooyi ee Tigray. qaybo ka mid ah masjidka Al-Najashi ayaa duqeyn ay ciidamada Itoobiya geysteen ay waxyeelo ka soo gaartay. Masjidkan ayaa la rumaysan yahay inuu yahay kii ugu horreeyay ee laga dhisay qaaradda Afrika ayna dhiseen asxaab ka soo hajirtay magaalada Maka. waxaa la rumaysan yahay in ilaa 15 ka mid ah muhaajiriinta ay ku aasan yihiin nawaaxiga masjidka ay waxyeeladu soo gaartay. Masjidkan ayaa ku yaala magaalada Wukra oo qiyaastii 800 kiiloomitir 500 mayl u jirta caasimadda Itoobiya Addis Ababa. hay-adda xarunteedu tahay dalka Belgium ayaa bartamihii bishii hore sheegtay in duqeyn loo geystay masjidkan kadib ay bililiqeysteen ciidamada Itoobiya iyo Eritrea isugu jira. waxay hay-addu intaa ku dartay in dad doonayay inay difaacaan masjidka ay ciidamada weeraray dileen. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in maleeshiyaadkii jabhadda TPLF ay dhufeysay ka qoteen agagaarka masjidka balse ma sheegin faahfaahin intaas dhaafsiisan. xukuumadda Itoobiya ayaa xanibaad culus ku rogtay warbaahinta gobolka Tigray waxaana adkaatay in la ogaado sida dhabta ah ay wax uga dhaceen muddadii ay dagaaladu ka socdeen gobolka Tigray.